haddana ilaahay ku barakay amiin howlahan indhafiiqista oo ay fulinayso hay'adda samafalka bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa loogu talagalay in si lacag la'aan indhaha loogu fiiqo ilaa 100 ruux waxaana lagu fuliyay isbitaalka Xalaal ee magaalada Muqdisho dadka ka faa'iideysta mashruucan oo isugu jira dad soo barakacay kuwa danyar ah iyo bulshada deegaanka ayaa qaarkood indho lahayn ilaa 10 sano waxayna soo dhaweeyeen samafalka loo sameeyay ليسو هيدا لغيره waxa bishan 10 sanaan laay waa la iga qalay waana kulli baana intii iga qashay iyo intii wax soo dhiiftaba oo u kaalmaysa ilaahay ajri xasanaas magacay Cabdullaahi Saqaadan la yiraahdaa maadaama bulshada Soomaaliyeed kamid ahay waxaan leeyahay oo wali fiiqay haddana waxaan ku arkaa si fiican ma wax arkaa aan saakin waxaan ma kaliya ana soo kaliya ay ma saakin haddana waxaan rajaynayaa ragay fiiqay in ka badan dadka u fiiqan in ka badan si fiiqan sarjayna anigoo ah Habiib Cabdi Guulad shalay markaa imaanay aniga meeshan inta ma haysanin alxamdulillah shalay kaligeeda markii iga daaway saakin wax walba banaanka ay noqdeen ilaahay ma hadda iskale 5 sano indhola ilaahay ma hadda iskale alxamdulillah idii maanta nasiisay oo noo abaal sameeyay ilaahay khayr asiiyo Dr. Ahmed Maxamed Cali oo kamid ah howlwadeenada mashruucan fulinaya ayaa xusaynaysi wadi doonaan howlaha samafalka ee dadka aragga ay ku daweynayaan isbuucii labaad waxa isbitaalka takhasusiga indhaha ee Xalaal aan ka wadnaa mashruuc indhafiiq tabarucaad ah oo ay maalgelinayso jamciyadda Xiyaa Turaat al-Islaami isla markaana ay fulinayso hay'adda Somali Welfare Society looguna talagalay wajiga koobaad inay ka faa'iideystaan 100 qofood oo loo sameeyo qaliin shaybaar dawo iyo maaragtay adeegyadaas oo dhan oo lacag la'aan ah isbuucii ugu horeeyay ilaa 50 qofood dad ku dhow ayaa mashruuci ka faa'iiday taasoo muujinaysa baahida jirta heerka ay la eg tahay iyo dadka sida maaragtay howlaha noocaan ay ugu baahan yihiin sida looga bartay isbitaalka iyo maaragtay hay'adaha la macaamilaba mashaariicda khayriga ah waa mid ka socon doona insha Allah ta'ala waan sii wadi doonaa qof walaal qofkii u baahan mashruucan wajidiisa dambe ayuu ka faa'iideysan doonaa waana wadi doonaa biidnilaahi ta'ala indha la'aanta wadanka ka jirta waa mid aad u ballaaran dad 150,000 oo qof kor u dhaafay ayaa lagu qiyaasay in indha la'aan la nool yihiin dadkaas waxa waaye badankood waxay ku nool yihiin tuulooyinka iyo deegaanada yararka oo adeegyada aan lahayn meelaha qaar waxaad ku arkaysaa dad 20 sano iyo ka badan indha la'aan baahida jirta marka wax maaragtay looga qaban kara kaliya waa bulshada inay isku kaashato cid allaale cidii awooday inay dadkaas masaakiinta wax u qabato Muqtaar Timacade warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.